إنا لله وإنا إليه راجعون وحبانت مقالة برعة حرنت قبل كتوغدير عسقرين لو سمي الله ونحرست الدكتور عبد أو ظاهر علي حتى باسك قرين لو سمي الدكتور عبد أو ظاهر علي أيا قود حامب وحانو كالحدين شعب وينها كل قبل كتوغدير وحانا كسو قيب قلي وفتي بلارنو هقامين يوم دعوين كوغين كجمهورية الصومالي لان وفتيو كسعودي لبضا قولي قرن الصومالي لان يحملو كسعودي حسبية معارض كالصومالي لان وحانا الصلاة دي جناسة اللي tukaday jaamaca magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ana halkaasi warbaahinta kala hadlay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xubno kale oo kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Togdheer inuu ka socday xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo qaraabadii ka baxay lana sameeyeen isla markaana waxaan isaga uga bareynaa ilaahay naxariis janno siiyo ilaahay maartay cadaab qabriga ka dhowro sidoo garayno Cabdi Aw Daahir Dr. Cabdi Aw Daahir waxa rag qarankan 20 sano u dambeeyay halgan adag ka soo galay dib u dhiskiisii iyo horumarkiisii qayb badan ka soo qaatay dowladii kala duwanaan wasiir ka soo noqday runtii wuxuu mudan yahay in aas qaran loo sameeyo وحق دمانتينا وين وضع دمانينا الدوم إلهي بينهاي وين كلا هرينا سببها يميرها إنكو كلا دمانينو أيوبا كلا دوان تريدنا نحدث عليها كتمي ولكن دكتور عبد أو ظاهر علي waxaanu uga tacsiinayna dhammaan shacbiga Soomaaliland gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii iyo heladii uu ka tagay walaalkeen waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo u dambi dhaafo jannada firdawsana ka waraabiyo innagana u khaatimada inoo wanaajiyo innagana dhammaanteena sabir iyo iimaan inaga siiyo Dr. Cabdi Aw Daahir مرحوم دكتور عبد أو ظاهر إلهي هون حريصته وحنين كوين قرن كان من مدن إلى المسجد نقول مادنو جنازتي سعيوها وحنين حلابور له وحنين حلاضيق له وحنين حيل سن أيوها إن الله وإنا إليه راجعون الله نحرسه هل دور عبد أو ظاهر علي وأرنتي نقرن بوها nin halgankii Jamhuuriyadda Soomaaliland dib xoreyntiisii ka qayb qaatay si ballaaran nin kastoo mujaahidi mid daawac u dhintay iyo mid intuu badbaadiyay intuu ay nool yihiin waa nin xilal kala badan mid xusbi iyo mid wasiirnimo iyo mid gobol intaba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo qabtay waa hal dooryada ee gobolka Togdheer كل نفس ذائقة الموت إنا لله وإنا إليه راجعون مرحومك عبدي أو ظاهر علي إلهي هو نحريسو قد كيسنا هو نورو قويسكي قرابدي دقمدا تقدر قرنكا إلهي جسيب هكذا ينحوها سمري من هكسيو نين وين بوها نكني نين قرن بوها دقمدا تقدر نين وين باكا بحي آدي بي geeridana tiiraanyo u leedahay naxdinna u leedahay bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka hore waxaynu ka tacsiideynaa geerida ku timi Cabdi Aw Daahir dhammaan qaranka Soomaaliland guud ahaan gaar ahaanna qoyskii uu ka baxay iyo ehelkii sida la sheegay ragii ugu horeeyay sheegeen wuxuu ahaa Cabdi Aw Daahir Allah u naxariistay waa nin qaran wuxuu ahaa nin ka qayb qaatay dhismaha qaranka Soomaaliland min bidaaya ilaa imika waxaynu leenahay wax kale oo maanta u tari karnaa ma jirto inaynu u ducayno ilaahayna u barino in ilaahay jannooyinkiisa ballaaran ka waraabiyo innagana samir iyo iimaan inaga siiyo inta waajibkeena way maanta waa intaa iyo inaynu xasuusanno wanaaggii uu ka soo qabtay dalka kan ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay jannooyinkiisa waasac Allah ha geeyo ilaahayna samriyo Allah inaga lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaynu joognaa
aaska marxuumka dhaktar cabdi awdaahir cali wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka waxaynu joognaa marxuumka oo ka mid ahaa aqoon-yahanada jamhuuriyadda somalilan ka mid ahaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka qof ahaan aniga saaxiib aannu ahayn gaara in badanna aannu xukuumadihii ilaa dawladihii maxamed ibraahim cigaal ilaa dawladdan maanta ee axmed maxamed maxamuud sinaayo aannu in badanna xilal wada qabanno aannu ka wada mid ahayn horteedna aannu mararka qaar ahayn rafiiq maqsin wada seexdaba oo saaxiiba cabdi awdaahir ilaahay naxariistii jannaha ka waraabay dhaktar cabdi awdaahir wuxuu ahaa nin deggan aqoon-yahana mufakara talaqabeena runsheega dadka aan xamanaynin dadka u naxariista dulqaad badan dadka aan dhibin had iyo jeerna urursan buu ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya wuxuu taariikh ku leeyahay oo ku suntan yahay dhismaha jamhuuriyadda somalilan horteedna dhismihii dib u xorayntii jamhuuriyadda somalilan kaalin shariifa oo wanaagsan iyo sumcad buu ku lahaa door wanaagsanna wuu ka soo qaatay waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo cabdi awdaahir cali ilaaha weyn uga baryaynaa inuu jannatulfardowsa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hoygiisa ka dhigo iyo halka masiirkiisa ah waxaynu bulshada somalilan iyo qaranka somalilan iyo shacabka somalilan dhammaanteedba uga tacsiidaynaynaa marxuumkaa qaaliga ah ee qaniyun can tacriif ciddii uu ka tegeyna samir iyo iimaan ilaahay subxaana wa tacaala ka siiyo ciwad khayr qabana ilaahay subxaana wa tacaala ugu bedelo dhankoodana maamulka gobolka togdherka degmada burco ayaa iyaguna tacsiid tiiraanyala uu diray guud ahaanba qoyskii qaraabada iyo qaranka somalilan ee uu ka baxay allaha u naxariistay doctor cabdi awdaahir cali ilaahay waxaynu uga baryaynaa ilaahay naxariista janno ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna uu samir iyo iimaan ka siiyo qarankuu ka geeriyooday cabdi awdaahir wuxuu ahaa nin ku suntan taariikhda somalilan wuxuu ahaa halgamaa wuxuu ahaa nin runtii ka soo qayb qaatay kacakufkii somalilan wakhtigii ay bilowga ahayd ilaa iyo dhammaadkeedii wuxuu ahaa wasiirro ilaa 4-3 madaxweyne ugu dambeeyaba uu la soo shaqeeyey waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo innagana qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodana uu samir iyo iimaan cabdiraxmaan ibraahim shabakada wararka madaxa bannaan ee hargeysa barays magaalada burco.